waxaad ku soo dhawaatiin warbixintan oo aan ka hadli doono atooraha lagu magacaabo Shushanti oo ahaa actor weyn u dhashay dalka India. Waxa uu ka mid ahaa daayarka dalkaasi isla markaasna aad loo jecel yahay oo dunida idilka sameeyay magac maamuus iyo hanti intaba. atoorahan ayaa aad iyo aad waxa uu caan ahaa filimaanta jiladooda. actorkan ayaa waxa soo wajahday xaalad adag sida ay wargeysyada qaar soo qoreen, waxayna wariyeen inuu isdilay qudhiisa. sababtaasi keentay aan ka warami doonaa iyo barnaamijkan ayaan ku eegi doonaa warbixintan kooban ee dhammaan bulshada ku soo dhawaada. run ahaantii magaca ka fokow iyo maamuuska ay ku sameeyaan qaarkood dadka dunida ku nool ayaa ah oo bilaadiin ama diin aan haysan oo diinta islaamka ah mid xaq ah. siyaasi daraadeed waxaa keenaya in caqabadooyin yar iyo waxyaalo oo aad u kooban soo wajaha inay go'aansadaan in qudhooda ay isdilaan oo ayaga dunida ayba iska masaafuriyaan. taasi ayaa sal u ah marka koowaad ciladaasi oo ah in shakhsi asiga uu isdilo. taasi ayaa mas'uulka ah. hayeeshee waxaan aragnay dadyo ayagana muslimiin oo isdilaya, marka ma ahan in micnaheedu ay tahay in magac iyo maamuus aad samayso. hayeeshee waxaa jira baahiyo kale oo qofka dareemaya iyo caqabadooyin badan oo dunida ku gadaaman ayaa shakhsiyaal qaar soo wajaho. ninkan magaca intaba iyo maamuuska uu lahaa waa uu isdilay sababo aan la shaacin weli, laakiin warbaahinta dalka India iyo website-yada ayaa ku howlan sidii arrintaasi u soo dhiraandhiri lahaayeen kuna ogaan lahaayeen. maahan markii ugu horeysay oo dhagaheena ay maqlaan in shakhsi caan ah uu dunida iska masaafuriyay oo asiga isku jaray tigidhkii aakhiro si toosan u wajahay. qaarkood ayaan maqalnaa oo tiro badan caana ka ahaa dunida, haba u badnaadeene qaarka aan diinta haysan, walow ay jiraan qaar ayaga qudhooda muslimiin ah, hayeeshee isdildala ama isdila ama suncaba iyo waxyaalo la mid ah. arrimahaasi ayaa ka dhaca dunida aan ku noolnahay oo caan ku noqday qaarkood. hayeeshee arrintan ayaa ah kuwa dadweynaha aad ay u hadalhayaan ayna sheegaan maadaama dadkan ay hayeen kuwa magac leh. saas daraadeed ay dadweynuhu u sheegaan oo arrimahaasi ay ku falaqayaan baraha bulshada una xiisayaan inay ogaadaan xogta rasmiga ah ee ka dambeysa isdilka dadka caanka ah iyo waxyaalaha ku sababa iyo waxyaalaha u keenay intaba. hayeeshee dowladda India ayaa tiri waan ku howlanahay kiiskan sidaan u ogaan lahayn qaabka wax u dhacay. jawiga guud ayaan baaraynaa iyo xaaladaha shakhsigan keenay inuu gacantiisa dunida isaga masaafuriyo. ma ahayn xaqiiqdii waxa anaga aan ka turjumi karno ama dareen ahaan aan ku cabiri karno. xibno ka mid ah qoyskiisa ayaa la weydiiyay, waxayna sheegeen inaysan filaynin in wiilkooda uu asiga isdili doono. hayeeshee tani waxay dhaheen waa qoraal u qoraa in wadadaasi uu maro. annaguna waxay nagu tahay in aan la yaabno oo keliya wax kale oo hadda aan eedaynayno hanjabaadyo kaga yimaaday dad cadow ah iyo waxyaalo kale oo aan ku tuhmayna ma jiraan. laakiin dowladda India waxayna ka codsanaynaa in kiiskan ay u baarto si xaqiiq ah oo ay wiilkana ku sheegto cilada keentay inuu asiga qudhiisa isdilo. waxaa warbixintaasi kooban idin soo gudbinaya janalka baaxadda weyn ee lagu magacaabo Dooxa Media. fadlan halkan haddii aad ku cusub tahay subscribe, like, share, comment intaba la wadaag asxaabta kale.